سكريونا جودو حبلابن دانسو بديه مسؤولينta ajoog kumanaan qof oo ka soo qayb galay doonaya inay arkaan dib u soo laabashada isbitaalada والله صلاحيتي waxaa gudkooda biyo soo galay hadii isbartii wala furay goolka yaa la salaxay taraaraha yaa la salaxay baasketki yaa ruux walba banooni ku baad inta oo geela salaxni lacag ku xiddoon ma walaha marna dhalinyaro badan riyadooda ugu moodo doonta oo ay garoon waaweyn ka soo muuqdaan hadii kooxaha waaweyn adduunyada ay ku baanaan barnaamijyo kaamil iyo Wembley anaga stadium Muqdisho ku baaneen aafo stadium Muqdisho dib u helnay waxaa siriya inaan sheegayo stadium Muqdisho inuu qaado 76,000 oo taageerayaal ah garoon oo qaado Soomaali ku yaal ma jiro marka akhyaarta la sheer garay video qurux badan la gaarsiiyo dadka jecel wanaaga ayagana si sheer garaya Soomaali oo jeedin horumarka maanta ku tilaabsatay meel weyn ayaa barin gaari doona insha Allah taala aad iyo aad aan faraxsanahay wax maanta agaaray dhalinyarada oo anoo kale waxa leeyahay hamigiina goobtan waa goob kamid ah darbiyada difaaca u ah ciidamada AMISOM
saraakiisha laamaha ammaanka ayaa qaadanaya salaan halkaanna waa barxaddii weyneed goobta iridda laga soo galaya mas-uuliyiinta ayaa halkaas joogto haye ii waran saddex waa haye maanta halkan waxaa u joogtaa halkan maxaa ka soo doontay ya weligaa ma soo gashay isbartiibada soo galin soo maa maanta ka warran xaaladda meeshan waxa ka socda ka warran ya waa maqli jirtay leemiya hay maanta ka warran waa joogtaa maxaa arkaysaa haye haye halkan ciidamadii la wareegi lahaa ayaa halkan iskugu keenay si ay ula wareegaan ammaanka guud istaadiga waxaa jooga mas-uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya saraakiisha laamaha ammaanka ayaa waxaa wareejinaya ciidamadii saraakiisha ciidamada AMISOM saraakiisha laamaha ammaanka saraakiisha laamaha ammaanka waxaa ku jira saraakiil ka socota ciidamada AMISOM dhammaantood waxaa la tusaa goobihii iyo xaaladda meeshan ayaa la tusaa Benar malam tuh. سريع ابو في قرر وطلعت عليه